wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ay weheliyaan wasiirada beeraha xanaanada xoolaha maamulka gobolka Saraar Salaadiin Cuqaal iyo waxgarad kale ayaa waxay si wada jira tacsi ugu direen eheladii iyo qaraabadii iyo waliba qaranka Soomaaliland ay ka geeriyoodeen saraakiisha ciidamada qaranka Soomaaliland ee dableyda hubaysan ku dileen deegaano hoos yimaada gobolka Sool sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa uu sheegay inay xukuumadda Soomaaliland gacan bir ku soo qaban doonto dableydii ka dambeysay dilkii loo geystay labadii sarkaal ee ka tirsanaa ciidamada Soomaaliland saraakiishaasi oo habeennimadii xalay lagu aasay taliska ciidamada gobolada bariga Soomaaliland ee gabaraya degmada Og oo qoyskii iyo qaraabadii iyo dhammaanba Soomaaliland in Ilaahay samiriye imaan ka siiyo anigu gudoomiye ahaan marka ugu horeysa waan leeyahay dhammaanba Soomaaliland Ilaahay samiriye imaan haynaga siiyo waa run waa saraakiil qaran waa run xukuumadda ka tirsan yihiin وهوال إني قرنك يدلك الجمهورية Soomaaliland باي ودحوا هاي الرقاص يا سيدا من الجهلة يصل الدين تا بلا حبرش على وسوق جرمدان أديات بارنتي نبوا قاعدين يا وحويان واد قرتين حلكين وحوي صادوا قرتين إلى هاي النجو مقرن سا النجو أسطورة هذا الكلام مشرو وحنقصوا قلنا هذا كليا وحل السوق يا عنقم لله وإنا إليه راجعون وحن هل كان تعسي وقدرنا سراكيشي هل كان كل ما تي قويس كودي يا قرابة دودي وحن تعسي تيران يلا ودريا قرنك Soomaaliland ودان سيبا رير بورمي وقت عسيدين يا جيران حنت لا كتيمي لبدا سركال maxaan ku raahday ku baxay reerkayaga waa dhacdo foolxun waanu ka xunnahay waxaan ilaahay uga baryayaa marxuuminta dhintay labada sarkaal gacanta xaq daran ay tishay waxaan filayaa ilaahay damiga ilaahay maanta wixii dilay ku reebay in ilaahay uu jannada geeyo waxaan u mahadnaqayaa qoyskii ay saraakiishaas sida gaarka uga baxday sidii wanaagsaneed ee deganeyd ee ay yeeleen markii warkaas yimi warka geeridu yimi ay u soo gurmadeen inay aska ka qayb galaan iyadoo goor habeenimo hoos dhaxa ay tahay oo ay jidda soo maray oo ku samirtaan oo nala sugtaan dadka waxa geystay intii la soo qaban lahaa marka xiga waxaan taasi tiiraayay loo diray eheladii iyo qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland ee ka baxeen labada sargaal saaragu sheegay runtii gacanka xaq dar ay dishay jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo baxay madaxweyne Muuse iyo Cabdi ee ahayd in gobolada bando lagu soo rogay waxaad marakadihiin 17 sano Soomaaliland jirtay inay tahay markii ugu horeysay ee bando lagu soo rogo goboladaas dilka iyo dhibta ku dhacday labada sargaal iyadoo aad marakatihiin Soomaaliland marka tahay in saraakiil badan oo ku in lamida saraakiisha lamadii hore ugu soo dhinteen bandoodaas miisaanka leedahay wadarkaysan cid maanta oo maqan ma jirto waan mahad celinaa runtii salaadiinta iyo waqaasha iyo cid kasto oo hawshan gacan ka geysataba marka ugu horeysa ilaahay waxaynu ka baryaynaa labada marxuum aynu xalayta halkan ku aasnay laba sarkaal oo ciidamada qaranka Soomaaliland ka mid ahaa in ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo gacan ku dhiigluhu ehel male isaska labada marxuum ay ka baxeen idinku ka dhasheen laakiin xukuumadda ka tirsan yihiin waajibkeeda ay xukuumadda tahay inay arrinkaas adag wax looga qabto mana suuro galayso inaan maxaan ku dhahday si iska sahlan idin dhahno waxbaanu qabanaynaa waanu waxba qaban weyno idinkuna dawa ogtiin وعلي آذن درد علي تاني ورالك تلفزيون كون كيبل مقالة داعينبا